بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وصدق جر waxa weeye maanta waxaan idila wadaagayaa qiso aniga Cabdi Maxamed ay ku dhacday waxana waa wax la soo xigtay qofkaasi qisadaas ku dhacday qofkaasi taas ku dhacday gabadhaasi waxaas ku dhacday wiilkaas waxaas ku dhacay waxana waa wax ana igu dhacdayba qofku leeyahay marka waxaan doonayaa macnaha inaan qisada igu dhacday marka idila wadaago hayeeshee daawade ama dadweynaha Soomaaliyeed intii aanan qisada igu dhacday iyo hawshan aan u gudbin waxaan ka codsanayaa muuqaalka inaad share dhahdo leegna dhahdo subscribe sidoo kale dhahdo wixii committee aragtidaadana aad noogu qortid hoos qaybta hoose inta koobaad qaybta koobaad waa intaas waa dardaaran marka waxaan u gudbaynaa qisada igu dhacday oon rabo waxgaradka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaago qisadan waxay tahay waa sixir la yiraahdo hadaad maqli jirteen wax aad iyo aad ugu eg oo hadee aad iyo aad ugu eg baan hadda arkay markii aan arkay waxaan isku dayay oo cilado badan oo aanan isku arki jirin baan isku arkay waayo aqliga Ilaahay iyo maskaxda iyo garaadka wuxuu noo siiyay inaan wax ku dareeno ciyaal yaryar ma nin dadweyne oo wax garadaan nahay marka waxaan dareemay culays aanan isku arki jirin waxa weeye waxyaabo fara badan goobihii aan ka shaqaysan jiray iyo xaalad meelahaygii aan sida qaaska uga duuli jiray oo aan jaleeci waayo oo aadi waayo oo wax iga saaran yihiin oo culays iga saaran yihiin intaas markii aan isku arkay waxaan anigoo yar wax dareemaya waxaan aaday xarun caafimaadkii isbitaaladii iskaanyi alaabban mar xagga mar waa wareenyo caadi baa tahay waxba ma qabtidisay wax u jiraan doctoraday sheekaysan adigu waxaan fahmay wixii markii horeba aan dareemayay iyo sixirkaas macnaha waxa weeye inay yihiin warnimayo xaaladaas ay ugu dhacday waayahan waxaan la kala maqnayn sidaas weeye waxa weeye dadkaasna hadda waxbaan yar ka dareemayaa waa dad macnaha aan dareemayo laakiin hadda ma dhahayo hebel ma dhahayo laakiin muuqaalka ku xiga waxaan isku dayayaa inaan soo gudbiyo dadka aan dareemayo oo waxyaabaha maaragtay hooska tuurka aan leenahay cadawga faan waa idin soo gudbin doonaa hayeeshada waxaan idin leeyahay bal walaalayaalow u duceeya dadkan iimaan kala oo maalin kasta dadka Soomaaliyeed oo caadiga ah oo waxa weeye dalkooda iyo dadkoodaba macnaha bartanka kaga jira inay daba mariyaan raba oo aragtidooda inay lumiyaan raba oo wanaagooda inay lumiyaan raba oo wax hadda hadii la sii eego wax uu ku eryanayay iyo wax uu ku daba socdoba midna aysan jirin in Ilaahay soo hanuuniyo horta u duceeya sidoo kale annagana noo soo duceeya in Ilaahay nacaafiyo ma fahanti indhihi iyo madaxii iyo meelo waxa weeye bay wax nooga sayrsayreenoo hadda waxa weeye indhaha hataa wax kaste xoogaa shucaab ku jira marka insha Allahna macnaha waxaan rajeynayaa in aanu ka gudubno balaayadan waxaan nala daba taagana Ilaahay naga qabto waxa iga dareemaya macnaha xaaladan asxaabtii dhalinyarada ahayd oo bariga hore taqaanay dhalinyaradii saaxiibada ahayn kadib macnaha dadkii Soomaaliyeed wanaagsanaa u yaqaanay ayaa iga dareemay niyo waa ma culayskaano niyo saan ma ahay moraalkaaga hore ma joogo see way macnaha dadkaas ila dareemaya marka waxa weeye aniguna waan iska dareemaya sidoo kale laakiin in aan maanta waxa weeye maanta ka hor inaan inta soo fariisto aan dadka la wadaagay qisadan ugu dhacday xaaladdan ugu dhacday macnaha waa markii koobaad insha Allah biriyo kale muuqaalka dambeeyay anagoo qisadan ka sheekeynay Quraan saar iyo waxa weeye qaybo kale oo ka bedelan waana idin soo gudbin doonaa marka waxa weeye sidaas aad ogaanaysaan faataxadana soo mara committee-gana aragtidiina committee-ga noogu reeba sidoo kale share tiya leegtana ha ilaawinina وهذا والسلام.